mashaariicda shidaalka waxaa ugu horeyn laga bilaabaa in horta la dejiyo shuruucdii lagu maamuli lahaa oo wadankana xuquuqdiisa ilaalin lahayd shirkadaha caalamiga oo shidaalka maalgashanayna ay helaan damaanad sharci u dhaxeeya ciddii iska lahayd maalgashiga iyo ciddii maalgashanaysaba sharcigaas meel fiican uu noo maraya baarlamaanka aqalkiisa golaha shacabka uu meel mariyay bishii May 20keedii hadda wuxuu yaalaa aqalka sare oo aan muxuu ahaa akhrintii koowaad anigaba ka sameeyay usbuucii hore waxaan filayaa xildhibaanada sharafta leh aqalka sare inay waajibkooda ka gudan doonaan oo ay ansixin doonaan sharciga sida u dhaqsiyaha badan kadibna madaxweynaha uu saxiixi doono waxa kaloo muhiim ah si mashruuc shidaal loo galo in la diyaariyo qandaraaskii ama contractigii lala gali lahaa shirkadaha taasna waan diyaarinay anagoo la kaashanayna hay'ado caalami iyo dawlado saaxiib aan nahay oo naga kaalmeysay mashruuc contractiga uu noqdo contract caalami ah ummadda Soomaaliyeed aan dhibaato ka soo gaarin oo faa'iido u ah isla markaana soo jiidasho mudan oo soo jiidanaya shirkadaha caalamiga oo aan tartan aan kula jirno wadamada diriska oo mid kastaba doonayo inuu asiga horumarsado ama ku hormaro soo saarida shidaalka sharcigan hadda aqalka sare hor yaala muddo dheer oo qaatay oo golaha shacabka xitaa muddo dheer oo soo hor yaalay marka caqabadaha ugu weyn ee haysta sharcigan maxay tahay wax caqabado hadda aan ognahay haysta male kaliya sharcigan Soomaaliya wuxuu soo maray 3 xeer mar xilligii dawladdii kacaanka ahayd Maxamed Siyaad Barre wuxuu sameeyay sharci loo yaqaan sharciga macdanta 1984 la ansixiyay oo madaxweynaha xilligaas Maxamed Siyaad Barre Allah naxariisto oo saxiixay waxa kale oo dib u eegis lagu sameeyay qaybta batroolka ee sharcigaas sanadkii 2008 waxaa saxiixay markii baarlamaankii toddobaad uu ansixiyay Allah naxariisto madaxweynihii ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Yuusuf haddana kiya dib u eegis lagu sameeyay sababta loogu sameeyay ay tahay Soomaaliya oo qaadatay nidaam federaal ah nidaamkaas federaalka wuxuu u baahan yahay in la shuruucda wadanka ay la jaan qaadaan sharciga batroolkan wuxuu kamid yahay shuruucda dib u eegista saas darteed loogu sameeyay meel fiican u maraya khubaro badan aan la kaashanay aqoon-yahano Soomaaliyeed oo sharci yaqaan ka shaqeeyay muddo fiican oo ku filan ayaa laga fikiray oo sharciga uu yeelay golaha shacabka haddana aqalka sare waxaan aaminsanahay hadduu arko inuu sida u fudud u meel marin doono haddii Ilaahay yiraahdo shirkadaha la kulantaan inta badan waxa soo bandhigtaan kheyraadka ku jira dalka laga yaabo marar badan aad heshaan shirkado daneynaya ilaa hadda ma jiraan wax heshiis ah oo shirkadahaas aad la seexateen oo ku saabsan soo saaridda shidaalka Soomaaliya kadib asaasitaankii dawladdii federaalka ee Soomaaliya 2012 markii la asaasay dawladda Soomaaliyeed waxay go'aansatay ku sheegay inay dib u eegis ku sameyso sharciga batroolka isla markaasna waxay heshiis la gashay laba shirkadood oo sahan u sameeyay badda Soomaaliya qayb kamid ah kaliya inta dawladda federaalka la asaasay waxay heshiis gashay oo kaliya heshiis labadaas shirkadood la sameeyay oo ku saabsan inay sahan noogu sameeyaan badda Soomaaliya laakiin shirkad hadda la heshiiyay oo la leeyahay shidaal bay soo saaraysaa ilaa hadda wax heshiis lama gelin waxaana inta la sugayay in shuruucda ay noo soo dhamaadaan kadibna aan si rasmi ah u la fariisano oo maartay taxadir leh ayaan rajaynaynaa in shirkadaha wala gali doono heshiisyo shirkadda Spectrum waa shirkaddii sameysay saamayntii ugu dambeysay ee 2D ga ahayd ee Soomaaliya lagu sameeyay hadda waxa ugu maqaal ah shirkaddii la wareegay oo ay la wareegtay shirkad kale oo la yiraahdo TGS marka howlihii socday maxaa dib u dhac ku keeni kartaa arintaas waa run shirkaddii Spectrum waxa u wareegatay ama la wareegay shirkad loo yaqaan TGS oo ka weyn iyada TGS waa shirkad caalam ah oo loo yaqaano lagu yaqaano sahamada iyo seismiga waana wax maartay effect ama wax saameyn oo ku yeelanayso heshiiskii annaga dawlad ahaan aan lahayn shirkaddii Spectrum ma jirto waana ka wada fariisanay waxaana u ballansanahay in sharci yaqaan annaga naga socdo sharci yaqaan ayaga ka socdo ay wada fariistaan isla markaasna ay dib u eegis ku sameeyeen heshiiskii annaga aan lahayn laakiin ilaa iyo hadda inta ay TGS shaqada wado oo muddo bilaa wax saameyn oo dhanka annaga negative nagu ah kuma aragno waana dhameystirayna inta maartay aan isleenahay waa sharci ahaan
si shirkadda TGSA rasmi ahaan ugu soo wareegto Soomaaliya waana islaana waana naga fiicnaan doontaa shirkaddii hore Spectrum